xuska munaasabadda toddobaadka qaran ee dadka baahiyaha gaar kale oo lagu qabtay guriga ummadda ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gelle ra'iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed xubnaha xukuumadda iyo waliba baarlamaanka ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti waxaa sidoo kale ku weheliyay madax ka socota hay'adaha qaramada midoobay ee xarumaha kula wadankani jamhuuriyadda Jabuuti saraakiisha ciidanka iyo dad aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalka oo iyagu ah dadka baahiyaha gaarka leh xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa goobtaasi dadkii baahiyaha gaarka leh waxay ku soo bandhigeen heesa ka turjumaya dhibaatooyinka ay bulshada kula nool yihiin iyo sida ay doonayaan inay ulahana qaadaan habka ay u socdaan bulshada kale ee dalka taasi hadalla ka jeediyay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaar kale oo qaarkood tilmaamay inaan horeba loola hadli jirin marka laga reebo dariiqa cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo dadkaasi iminka u tilmaamay oo ah in dadkaasi ay qayb ka noqdaan hanaanka guud ee horumarka dalkani jamhuuriyadda Jabuuti kana qayb qaataan howlaha dalka waxa goobtaasi ka hadashay isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan dalkani jamhuuriyadda Jabuuti Barbara Mansi waxayna goobtaasi ka sheegtay in fikradda ah in dadkani wax loo qabta ay tahay talaabo loo baahan yahay oo ku dayasho mudan gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti Salebaan Cumar Cudin oo isna goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in arintani ay tahay mid aad loogu baahnaa waxa sidoo kale goobtaasi ka hadlay Ducaale Siciid Maxamuud oo isaguna ah agaasimaha wakaaladda dadka baahiyaha gaar kale ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti maanta hortiina waxa iman doona oo arki doontiin haddii arkayseen maanta baahi gaara bilad lagu bixinaya baahi gaara ayuu madaxweynuhu bilad ugu doonsiiyay maanta dadka Jabuutiya halkaana waxa gaarsiiyay waa madaxweynaha waxa leeyahay ilaahay ciidankiisa waxaan ku weydiinaynaa ifkaan adduunyada nimcad aakhiran janno usla barza adiga iyo marwada koowaadba wax badan baad la qabateen wax badan baad ugu taageerteen ani ducaale ahaan waxba ma qaban waxa wax qabtay waa madaxweynaha iyo xaajiyada iyo ku haday garab galin kuwa indhaha la sadaqada la siinin ma kamid hal Soomaa ee halka lagu dhaafay sida weyn ugu dambeyntii waxa goobtaasi hadal ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo isagu tilmaamay in ay farxad weyn u tahay in uu ka qayb qaato xuskani waxaana hadaladii madaxweynaha kamid ahaa adban horta waxaan balyeynaya ururkeenaas ajanskaas aad madaxa ka tahay hawsha sanad uu anagu malaha 30 sanadood aan ku qaban weynay uu sanad ku qabtay ninkaas فان معها نفاقنا معها حقيقة السلاوي دتك نافذة أما باهي جارك عليه مواطنين تنادورة تبي كجيه وليه قبي وقبان دتكاسي ورال ويلي قبض أبيه هو يبويلي إن باهيده بجارك سيدا أي مجتمع وجر لهاين إن اللغة فقوقني من dadaalkeena ama waajibkeena weey gabagabadii kulankaasi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu bila sharafiye kala duwan ugu tolay ilaa 9 qof oo iyagu ah dadka baahiyaha gaarka leh Mikael Cabdirashiid Bare Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Jabuuti